horumarna ma gaariyo ixtiraafna heli maayo marka maanta talaabada aan qaadnay insha Allah taala soo dhamaan doontaa waxay wax ka tari doontaa horumarka dalkeena iyo anagu waxaan ka shaqeynaa inaan dadka hareeraha wadanka ka soo xoojino wax loo baahan yahay gudihiina la hagaajiyo oo haddii inagu hareerihii ka soo dhisina gudihii aan aragno inuu furmayo de waxba ma kala ma kororsan waxaan leenahay waa in midnimada laga shaqeeyaa dalka la dhowraa dadka la dhowraa la kala saaraa shakhsiga iyo administrator qaranka xumaynaya kama maqnaanayso xumaantaasi waa inuu macaarido noqotaa macaarido ku kooban issues laakiin aan ahayn qarin dumis aan ahayn haddaynu inagu dalkeena wasakhayno cadowguna maxaad u malayn doontaa inaga xad moodaa inaan inagu siino hubkii cadowguna la dhici lahaa inaan haddaynu media nahay haddaynu nahay maqaasa siyaasiyiin haddaynu nahay culummad salaadiin traditionkeeni hawsha waa la kala leeyahay waxa weeye in ummadda kala dambaysa ummad aan kala dambaynin horumar ma keento waxa quraanka ka ilaahay u abuuray inay isdaba socotaan marka waxaan leeyahay dalka qof kasta waa in wax kasta fara la gelin hawsha lagu kala dareero qof kasta shaqadiisa qabsado af Soomaaliga aan hagaajino ilaahan ka cabsano xumaanta ayaan ka horeysin wanaagga baan arrintan dad fiican baan u tagnay dad in nabad jecel baan u tagnay dad heshiisyadan wadnaa ay ka daacatahay baan u tagnay dad cadowga aan u aragnaa iyagoo cadow yahay common enemy wada leenahay ayaan u tagnay oo isku arkinahay dawayna taa gacanta isku saarnaa oo xoojinaa shacbi iyo dawlad iyo siyaasiyiin ba doorta loo doorasho jajab oo la yiraahdo in direct u bixiyeen dad bana ahayn suuqa dadka laga soo leeyahay weeye hortina qaar ba salo dooran jiray laakiin waxaan jecelahay insha Allah taala inuu Ilaahay subhanahu ku guuleeyo anaga arintayadana kobasu noolo yimaado macaan iyo qaraar baan u leenahay hadduu qaraar noolo yimaado si ka horeeyay Xasan Sheekh sheeganay taana qaraarkii waan tusi doonaa aadna waxaan diiradan ku haynaa talaabin ku qaadiyo iyo kelmado oran doono waan ilaalinayna hadduu sidii adeerkii maskaxda adeerkii ku socday noqdana xasuuqa noo geysana maanta cid naga xoog badan ma jirto halku joogan isagoo ku martay adoo hargeysa martay kuma tidii xamar muqdisho walaalkan maxamed siyaad bal ka wada ridnay ana kaga wadanaysan taa ku yahay martida ma joogiyo anagu iska celin doon hadduu wixii tootoodi ku hadlo alla iyo midnimo Soomaaliyeed iyo wixii la yimaado leesan baan bari doona insha Allah taala tan markaan u imaadana naga baarlamaanka soo lama marin oo aad kaba waxa weeye ummadda waxa ka wakiila waxa la yiraahdaa parliament is the sound of the people waxa ka wakiila baarlamaanka xusbi haduu yahay MPda naga wakiila mooshinka ka hadlaya ishiiso ka hadlaya ma ina habar kasta ka taasho hadii fuliyeen oo baasgareeyeen maxay noo yaalaan waa sharci qaabka dee waa la footay wax kala sameeyay xildhibaanka waxa weeyaan order and order ee jiraado madaawinta South Africa maanta South Africa madaxweyne qudbadeenay idigu waxa doonaysan meel lagu doodiyo aan farta la istaa waxa weeye ninka baarlamaanku inuu kursigiisa fadhiyaa uu ka doodaa uu food kana ridaa awood baa la siiyay ma inuu dagaalamo ma meesha food ka ridaa ma xasanad baa la soo ma xasanad waxa weeye laakiin hadda dee meesha buu ka sameeyay xaq baa loo waan tahnideenaya Saleebaan si raganimo iyo hogaamiye strong soo dawladna wakiil maaha dawlad ma waxaan danteena bay ay qabanaysaa kula waxay kula tahay inuu dawladda inaga madaxda anagu uga la jecel badan dalkeena ee u dhaartay ee xilka